بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. الله سبحانه وتعالى makhluuqa marka uu abuuray, khaasatan jinka iyo insiga, wuxuu tilmaamay laba sinfi inay yihiin qolo rabbi aqoonsatay oo daacada alle ku dadaashay oo diinta ku dhaqantay oo waxdaaniyada ilaahay qirtay. qolada noocaasa mu'miniin baa la yidhaahdaa. qolo inkirtay oo dafirtay jiritaanka alle, bacfiga qiyaamaha, ilaahay subxaana wa tacaala wax la shariig yeelay, aqoonsan waaye nicmadii ilaahay u galay ee weyneyd, qoladaana kaafiriin baa lagu magacaabaa. alla waa allaha idin qalqay. fa minkum kaafirun wa minkum mu'min. kaafir iyo mu'min baa idinka mid ah. waxaa idinka mida qole alla aamintay oo rabbi rumaysay oo diinta ku dhaqanta, bacfiga rumaysan, u diyaargaroobaya, iyo kuwa aan ogolayn allihii qalqay, inkiray, juxdi ku sameeyey, diiday, waxyaabo fara badan oo noocaas ahna la yimid. qolada kaafiriinta ah ee rabbi aan aqoonin, waxay doonaan bay sameeyaan, waxay rabaan bay ku hadlaan, say doonaan bay u diin dhigtaan. amaa dadka rabbi rumeeyey, iimaankana lagu tilmaamay, ma dhaqaaqaan ilaa amarka rabbi siiya maahane, ma sameeyaan ilaa wuxuu alla u diray maahane, ma cunaan ilaa shay xalaala maahane, ma hadlaan say doonaan ilaa wuxuu ilaahay amray maahane subxaanahu wa tacaala. qolada kaafiriinta ah ayaa in badan waxay sameeyaan arrimooyin aan wanaagsanayn. hadday munaasabaad ahaan lahayd, ciide ay ciidaan iyo waxyaaba markaa la mid ah. saa darteed baa wax badan, waxaa beryahan badan, sanooyinkan badan, qarnigan badan, in dadkii iimaanka lahaa booskii allay ka caabudi lahaayeen, waa gobolka mid ahee, ay ku daydaan, raacaan ummadda ilaahay inkirtay kaafiriinta ah. hadday ciidayaan, sida ay kaafiriinta u ciidaan bay u ciidaan, way kala qayb galaan. waxaa nagu soo dhow wax ay ku magacaabaan ciidda kirismaska. ciisay ku weyneeyaan, ilaahnimay ku gaarsiiyaan, xadkiisay kaga bixiyaan. dadka iimaanka leh ayaan rabaa in yar inaan baraarujiyo oo aan ogeysiiyo taqliidka iyo kudayashada indhala-aanta ah inay iska daayaan. qaaraa hadda dharkii soo gatay ay ku ciidi lahaayeen ciidda la tilmaamayay kirismaska ah. hooyooyin baa doolsho duba, buskud bay dubaan. ilmihii iskuulaadka gobolka mid ah, khaasatan kuwa qarbiga jooga, waxa ay samaynayaan waxyaabo ay ugu diyaargaroobayaan. maxaa dhacay walaalayaal? ilaahi subxaana wa tacaala amarkiisa sow ma qaadanin, iimaan sow ma lihin, diin islaam sow kuma socono, dad ay diin alla hagaysa ma nihin miya? rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi, waad raaci oo waxaad raacaysaan sanamtii iyo wadooyinkii dadkii adinka idinka horeeyey, shibran bishibr, taaka taako, dhudhun dhudhun, xataa hadday idinka galaan mansalugoolay godkeeda, waad ka dabageli doontaan buu yidhi sala allahu calayhi wasalam. yuhuud iyo nasaara miyaa bay dhaheen, yaa kale buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam. faman waayahee yaa kale, waa ayaga macnaha. saa darteed walaalayaal, aad ha loo dadaalo, rabbi ha laga xishoodo. ubaxaa laysku dhiibayaa, buskud baa laysku hadiyeynayaa, hambalyaa laisleeyahay. kulligoodba maa anzala allahu biha min sultaan, wax sultaan uu ilaahay kusoo dejiyey ma jiro. waxaaba dhib weyn kugu filan nin kaafir ah, gaal ah, diintiisii u damaashaadaya, inuu kugu soo dhiirado inuu albaabkaaga soo garaaco, ubaxna kuu dhiibo, buskud kuu dhiibo, faanto kuu dhiibo, asagoo ku dhahaya hambal iyo ciiddii ciise kusoo dhowow. waa tabardaro, waa ducfi, waa iimaan yaraan, waa waxyaabo fara badan
xaggeena ka yimid. saa darteed rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi waxaa la gaari doonaa aakhiru zamanka inay intay ummaduhu isku kiin wacdaan sida qasacada iyo xeerada raashinka ku jira dadka cunaya ay isugu wacdaan oo kale. xilligaasaa la gaari doonaa. way isku kiin hawrwacanayaan. ma yar nahay bay dheheen rasuulkii allow, ma qilo iyo yaraan aan nahay meesaa noo yeelayaan? may waad badan tihiin buu yidhi, laakiin waxaa tihiin guthaa, xumbo, wasaq, ka guthaa'i sayl, daadka wasaqda uu soo qaado oo kale. mathalkana lagu miitaalaya fiiriya. ilaahi subxaanahu wa tacaala cadowgiinii gaalada ahaa heybaday idinka heybaysan jireen haddaad mu'miniin tihiin. heybada macnaha waxaa laga bixinayaa heybaday idinka heybaysanayeen, cabsiday idinka cabsanayeen, way idinku soo dhiiranayaan, waxay doonaanba idinka samaysanayaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala haddaa dhab loo caabudin, khayrka iyo wanaagga ummaddu aysan ku soconin, ilaahay diintiisa aysan xoog u qabsanin, taasaa dhici doontaa. idinkana waxaa laydinku soo tuurayaa wahn. waa maxay wahnigu bay dhaheen? waa xubu dunyaa, waa adduunye jacayl iyo geeri naceb buu dhahay sala allahu calayhi wasalam. walaalayaal aad u dadaalno, aan iska ilaalino arrimooyinkaa soo socda. waxaan la samaynaya ha layska xakameeyo. war gabadha muslimadda ahay rabbigaa ka baq, oo dharkaad u tolanaysa krismaska jooji, oo waxaad ugu dabaaldegaysid jooji, oo waxyadan aad tuuraysa jooji, oo waxyaabahan aad hambalyeynaysa dhaaf. nebiga sala allahu calayh wasalam magaalada madiinuu soo galay, 2 maalmood bay ciyaari jireen. waa maxay? waa 2 maalmood ay feesteeyaanay tamaashaadaan. ilaahay wuxuu noogu bedelay buu yidhi 2 maalmood oo ka khayr badan. waa ciidulfitri iyo ciiduladxa. walaalayaal waa ciid cibaado, waa ciid khayr la sameeyo. walitukabiru lcidda walitukmilu lcidda walitukabiru llaha calaa maa hadaakum walacalakum tashkuruun. diinteenna laftigeeda waa diin cibaado. diin khamre la cabo ma aha, diin la isqaawiya ma aha, diin garka la xiiraa ma aha, diin ciyaalka dhar mtaqaanaa gaarad loo geliyaa ma aha. waa in ilaahay la weyneeyo, waa in ilaahay la xuso, waa in ilaah subxaanahu wa tacaala lagu shukriyo. ciidda ku xigta ilaah muxuu yidhi wadkuru llaha fii ayaamin macduudaat, inaad ilaahay xustaan maalmo tirsan. ويا متشريق وعيد كله. سادرتد بو إلهي سبحانه وتعالى نبي نوغت المامية وحبذنا أمريا عيد اللفتجيذا إن عيد معاصي لقدقين، عيد عبادة لقدقو، عيد لقدقو متغانا عمل صالح لقبته. ساسا خيرك وناقا كجرا آد هلو دذالو. رسولكم حير أيام التشريق وأيام الأكل والشرب إلهي حسكيس سبحانه وتعالى، وأيام اللعبه وأيام الله عنه وأيام الرب لوينيه الله حصو إله ذكرجيس الله بضيو سبحانه وتعالى. عيدا نقص صعوتها ويكت الماما عيد نوعاس إني تهي وإنا كفي جنانا وأنا عررت أقدقنا وأنا انضماشاضين وأنا نهمبليين وأنا وحيابك لسمين. دينة إسلامكو أيضا أقص الرئيسة أيضا أقوك الرئيسة وحو أقوترق إلهي نبي سو ديريتان كيسا ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. هكذا سدانو هنعانو هدي ذانا مشركين يا قالي وإني أيضا أقص الرئيسة وإن شعار كذا كر لو قاضى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سادتت بعد هذا أركيسا هلي بالي إيكيني معونايا سيلقوكو كيني كرا مركهوري سوكو سو ديران كرا مركهوري. وإن قفك الدبع سنانتا كبحا، وإن قفك موجيا كرتي، وإن قفك مسلم كان نقضى عزيز ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. إذن هل دذالو ربي وحان كبريينا تقاليد كان يوحان أن كد ينينو قال ذا وحينو مليغيين كل إنو إلهي نقا حكميو إلهي نقا عليو كيد كودنا إلى سبحانه وتعالى بأنه كما قلينا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. إنه إلهي نقدق كودين تود أصول نغضا ردا جميلا. إله إسلام كوينية إلهي قحص سبحانه وتعالى بل يرى وضيال هيوين عرور كل وإن أدلو دذالا
layskana ilaaliyaa waxyaabaha nagu soo food leh xaqa allahna waafajiyo wabilaahi towfiiq wallahu aclam